shir ballaaran oo afartii caanameele ee u dambeeyay uga socday degmada Qoyte ee gobolka Togdheer mid ka mid ah beelaha dega gobolada Saaxil Togdheer iyo Maroodi Jeex ayaa si rasmi ah u soo xirmay xiritaanka shirkan oo ay ka soo qayb galeen wufuud isugu jirta madax dhaqameed odayaal xildhibaano mas'uuliyiin ka socotay maamulka degmada Burco culimo awdiin aqoon-yahan haween dhalinyar mudan iyo marti sharaf tiro badan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay xiritaanka shirkan xubno isugu jira gudida qabanqaabada ee shirka madaxda dhaqanka mudan iyo waxgarad kale oo ka mid ah beeshani shirka qabsatay kuwaasi oo madasha kaga hadlay ajendaha shirkani soo xirmay duco iyo isxog waraysi buu ahaa maalintii koobaad maalintii labaadna waxay ahayd qaashi iyo dhaqankii saddexaadna waxay ahayd qabashada liisaska musharaxiinta maantana waxaynu u gudubnay maalinkii afraad oo shirku inoogu soo xidhmay waa shirkii dhaqanka iyo isu dhammaystirka waa shirkii siyaasadda iyo kala saarka musharaxiinta madashan waxaa ku soo gebagaboobay shirkii tawfiiqda iyo talada axmed xasan iyo gaashaanbuur shirka halka lagu qabtay wuxuu ahaa shir dhaqan oo lagaga tashanaya aayaha axmed xasan iyo gaashaanbuur waan ku faraxsanahay haddaan nahay hablaha axmed xasan dhammaantaya waan ku faraxsanahay waxaananu ilaahay ka baryaynaa hadafka iyo himilada aanu leenahay iyo maxaan ku shirkan aanu soo qabanqaabinay sidaanu doonayno inay noogu dhammaadaan haddii aanu nahay baalkii hablaha ee axmed xasan waxaanu taageersanahay maanta dadka madasha isugu yimi shirka ujeedkiisa weyn wuxuu ahaa heer dhaqmeed ooshuna ay si weyn ugu codayso ayuu ahaa maqsadka ugu weyni deeyeen oo ay go'aamiyeen in aanay musharaxiinta axmed xasan iyo gaashaanbuuri ka badan 3 xubnood oo midna uu yahay golaha wakiilada gobolka saaxil labana ay yihiin golaha deegaanka berbere iyo burco xubinta golaha wakiiladu inay ka tartanto gobolka saaxil lagana dhigay xirsi xaaji cabdulaahi xaaji xirsi odowa waxaa kaloo la isla qaatay labada degmo ee eeda ah ee reer ku degan yahay mukhtaar daahir maxamuud weye musharax abokor bilay isaxaaq kursigan maanta aan reerka ka codsaday ee aan reerka u wado markii aan ka fikirayey ee maskaxdayda aan ku celcelinayey waxaa in badan ii muuqatay inuu kursigani noqday kursi sida odayaashuna inagu celceliyeen kursi wakhti dheer inaga maqnaa aynaynu geyno oo ay ahayd inaynu wakhti walba aynu haysano waxaan anugu ka sharaxanay deegaanka jamhuuriyadda somalilan waxaan halkan odayaashayda qiimaha badan leh cidii ay waxay gartaan halkan aan ka qaato mar labaadkana waxaan u mahad celinayaa bulshaweynta axmed xasan iyo gaashaanbuur ee ii garatay inaan ka mid noqdo musharaxiinta u tartamaysa golayaasha deegaanka dhankooda waxaa iyaguna xidhitaanka shirka degmada Qoyte ee gobolka Togdheer ka hadlay maayir ku-xigeenka magaalada Burco iyo xubno ka mid ah marti sharaftii lagu soo maamusay xidhitaanka shirka degmada Qoyte ee gobolka Togdheer beelweynta axmed xasan iyo gaashaanbuur waxaan leeyahay waxay u soo agaasinteen si aad iyo aad u qurux badan madasha sharafta leh axmed xasan iyo gaashaanbuur isugu timi waa maalintii ugu horreysay intaa in leeg oo abtiyaalladaan isa soo dhex taago waxaan celinayaa beelweynta gaashaanbuureed axmed xasan mar haddii axmed xasan iyo gaashaanbuuri ay soo doorteen xildhibaanadii golaha deegaanka iyo baarlamaanka uga qaybgelayay way ku mahadsan yihiin annana waa la qaadanaynaa laga sheegay axmed xasan iyo gaashaanbuurtiisa inay ku tashatay waxaanu leenahay ilaahay talana ha idinku guuleeyo mid ay ku najaxtaan ka dhigo waxaan halkan ka barakaynayaa shirkaa maanta ay yeesheen beesha axmed xasan iyo gaashaanbuur waxaan leeyahay ka dhigo shir barakaysan xasan iyo gaashaanbuurtiisa iyo xildhibaanadan ay soo doorteen iyo dhammaantoodba waa ku mahadsan yihiin annagoo idinku raacnay waxaa ballan qaadeen iyo waxaa laydinka sugayo waxaanu idin leeyahay idinkana waxa weeyaan xilkana ilaahay ha idiin fududeeyo waxa weeyaan waana laydinku ridayaa reerkuna wuu idin ballan qaaday iyo wanaagga iyo midnimada iyo wadajirka aa muujiseen beelweyntiina maanta halkan fadhida ee axmed xasan iyo gaashaanbuur idinkoo ujeedadiinu tahay inaad qarankan
qaybtaa ku leediin waxqabadkaa ku leediin iyo horumarka intaa kaga bigantiinba inaad muujisaan maanta halkan isugu soo baxdeen ilaa salaadiintiinni iyo cuqaashiinnii iyo haweenkiinnii aad iyo aad iyo aad bay farxad noogu tahay waan idinka mahad celinaya markaa midinka aad meesha geysanaysaa waa inuu noqdaa nin idinkana idinka maraya qarankana ka maraya markaa waxaanu ka markhaati kacaynaa ragga dhallinyarada ee maanta halkaa fadhiya inay yihiin rag runtii idinka geysan oo waa Fahmi Kaysa Xirsi Bulsha TV Burco.